Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaanu joognaa degmada Galdogob. Halkan waxaa ka socota ciyaar dhex maraysa naadiga degmada Galdogob oo ciyaaray iyo naadi marti u ah oo ka yimid ama ka soo socdaalay degmada Buuhoodle ee gobolka Sool. Haddaynu dhamaysano ciyaarta waxaanu u socdaali doonaa dhanka miyiga ee deegaanka loo yaqaano Ludub iyo Bariscad iyo Dhagafur u dhaxaysa. Waxaana ka dhici doonaa aroos miyi ah. haddii Ilaahay idmo waxaanu idinku dari doonaa muuqaalkan yar aanu ka duubnay ciyaarta saaxiibtinimada ee degmada Galdogob ka socota ayaanu ku kabi doonaa tii dhaqanka reer miyiga arooskaas intii aanu ka gaarno haddii eebba qadaro sida aqalka loo oodo sida aqalka loo dhiso iyo waxyaalo badan oo ku saabsan dhaqankeena. safar dheer kadib waxaanu soo gaarnay deegaanka aan u soconay aroosku ka dhacayay. halkan waa deydkii oo niman dhalinyaro ay oodeen ama rag ooday. gudahana waxaa ka socda dhismihii ay dumar dhisayaan ama aqalkii dhiska loo yaqaanay ama aqal Soomaaligii ama qaymad sida hadba u taqaanid. halkan waxaan ka tusi doonaa udba aad loo sharaxay oo calamada Soomaalida mid ka mid ah lagu sharaxay. waxaanu arki doonaa hal iyo laba haddaanu ka gaarno waxaa loo isticmaalaa aqalka miyiga ama aqalka miyigu waxyaalaha uu ka kooban yahay qayb ka mid ah. halkan waa raradii caws baa laga sameeyaa. raradu 3 qaybood bay u qaybsan tahay: hoos gashi, feere gashi iyo dulsaar. kan alool baa laga sameeyaa ilaa xirka gudaha. waxaan waa udbihii iyo calamada jeedid calanka sharaxay. halkaas waxa dhismuhu ka socdo insha Allah dhismo qurux badan ee reerka Allah ka dhigo reerkii lagu nasto lagu nagaadee. xaqiiqa nolosha miyigu waa nolol nastahan asturan qurux badan marka ay sida tan oo kale waliba tahay barwaaqada cawska iyo nimcada Ilaahay uu shubo ay taalo ee aan oolin haraadka safarka iyo aroorka dheer aanu oolinin. geel horweyno halkii higlaaliyo loo horay tarkiyo oo kunay u helani hagarlii u shubayaan sida loogu heesaan anaku adkayaan. sida geel horweyno halkii higlaaliyo loo horay tarkiyo oo kunay u helani hagarlii u shubayaan sida loogu heesaan anaku adkayaan. inta waxaad u leedahay oo lagugu haysan anagiyo asluubtii lagu haybsan jiray dumar.